بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kastoo aad naga daawaneysaan halkani waa telefishinka caalamiga ee Somali Journal stuudiyihiisa magaalada Helsinki waana anigoo Maxamed Bashiir ah waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijkii xogside oo aan ku wareysanayo Saciid Kaarshe Aadan oo kamid ah aqoon-yahaninta Soomaalida ee wadanka Finland isla markaasna sanadkii tagay bishii 12aad tagay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Galgaduud waraysigaasi oo dhinacyo badan taabanaya ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkayaga halkani waa Somali Journal stuudiyihiisa magaalada Helsinki maanta waxa marti igu ah Saciid Kaarshe Aadan aan iraade oo kamid ah aqoon-yahaninta Soomaaliyeed isla markaasna la shaqeeya wasaaradda shaqada iyo ganacsiga ee dalka Finland سعيد كسر دو تلفزيونك Somali Journal استوديو سمعنا هلسنكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وحواي إلهي بمهد له. دولنا كنتي وحن كم هاد علينا يا فرصة دان قالق هذا السيسين Somali Journal. مركا وسود دوه. سود وين كدب حيابيها وحكاوي دين دون وحكم ذا. إن أديكو وحاتهاي شخصي كم ذا. dadka jaaliyada ee wadanka Finland waqti farabadan waa deganeed muddo 20 sano iyo wax ka badan waxaad ka mid tahay dadka xagga aqoonta wax uga faa'iideystay marka adigoo noo soo koobaya CV-gaaga inaad wax yar naga sii soo bara walaal sidaad sheegtay anigu waxaan ku jiray dhalinyaradii markii wadanku oo burburayay intuu dagaalka sokeeye gelin fursadda u helay inay wadankan yimaadaan runtii aad ayaan u yaraay laakiin ilaahay xamdigiis waxa waaye waqti igama qasaarin waxaan ka soo bilaabay macaadiyada hoose dabadeedna waxaan dhameeyay macadka hoose markaan dhameeyay waxaan ku xijiyay maxuu ahay bachelor oo social science ah dabadeedna waxaan suubiyay 3 sano oo khaas ah macnaha special ah oo ama waxbarasho khaas ah oo la xiriirta cilmiga maskaxda dabadeedna waxaan suubiyay master wixii xilligaas ka dambeeyay 98 ilaa haddana waxaan u shaqeynayay waqti dheer waxaan ka shaqeynayay magaalada Helsinki ayaan qaybta macnaha arrimaha bulshada la taliya uga ahay 3 sano ugu dambeysana waxa waaye laba wasaaradood aan ka soo kala shaqeynay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda hadda aan joogo ugu dambeysay shaqada iyo dhaqaalaha oo qaybta la qabsashada ama dadka wadanka u soo guuray qaabilsan bolosigeeda Saciid waxyaabahan wax ka weydiin doono waxa kamid ah bishii 12aad sanadkii tagay waxaa tagtay magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ujeedada socdaalkaasi maxay ahayd walaal socdaalkaasu laba ujeedo lahaay marka koobaad runtii fasax ayaan soo gelayay marka fasaxaas oo macnaha sanadka kala wareegiisa ayaan runtii waxaan ka faa'iideysanayay wadankii maadaama isbedelo badan ka jiraan horumaro badan ka jiraan rajadii dadka dib u soo noqonayso ayaan waxaan ku tamaninayay inaan mar uun ka qayb qaaton soo arko horumarka wadanka jira iyo ifaalada muuqata kaas qayb u ahay qaybta labaad waxay ahayd oo khaas ka ahayd macnaha gobolka Galgaduud iyo qaybo kamid ah Hiiraan iyo Mudug ayaan waxaan ka wadnay barnaamij caafimaadka la xiriira oo qurba joogteenu aan macnaha howlwadeen ka ahayn khaasatan aniga iyo rag kale iyo dhaqaatiir kale oo reer Finland marka taasna waxay ahayd inaan soo qiimeeyno hawshii aan u haynay bulshada qaybaheeda kala duwan la soo kulano qaybta labaad oo aan ka dhaxgalay wax ka weydiin lahaa markii aad tagtay gobolka Galgaduud gaar ahaan Dhuusamareeb waxaad la kulantay sida aad sheegtay qaybaha bulshada waxaadna u tagtay mashruuc aad halka ka wadaan oo caafimaadka bal noo qeex mashruucaas waxa uu yahay iyo wixii markaa u qabsoomay intii aad wadeen walaal horta waa mahadsan tahay mashruucan horta waxaa wada urur la yiraahdo Saahid oo marka magaciisa la soo magaciisa la macneeyo ah ururka horumarinta caafimaadka waxbarashada ee gobolada dhexe Soomaaliya 9 iyo muxuu ahay 7 ayaa si official loo aasaasay ururkaas ayaa horta hawsha macnaha wada xoogiisa dad kala duwan oo dhaqaatiir iyo aqoon-yahanin kala badan ayaa ku jira qurba joog badan oo meelo badan oo adduunka kamid ah ayaana garab siiya oo reer Galgaduud iyo isugu jira iyo gobolkaba meelo kaleba anaga marka hawsha waxaan bilownay oo ugu horeeya hawsha ugu weyn hadaan hayno waxa kamid ah isbitaalka gobolka oo isbitaal aad u qiimo badan
ay oo 300 qofood loogu talagalay inay seexato 150 dumar 150 rag ah ayaan waxa waaye 10 sano ugu dambeysay gacanta ku haynay waxaan kaloo baray yar ka abuurnay dhowr degmo oo u dhow maadaama dad tabarteeno yarnahay laakiin xoog hadda waxaan gelinay oo aan energy badan gelinay isbitaalka gobolka saan u kici lahayn ilaahay xamdigiis maanta natiijo fiican ayuu maraa waa gobolka deegaanka dhan oo hadda macnaha Soomaaliya markii laga soo tago waqooyi iyo Somaliland meesha kaliya oo barnaamijka qaaxo oo wata dhaqatarkiisa shaybaaradiisa wixii dhan loo soo aado waayo xitaa gelinka shanaad iyo Kenya laga yimaada dhinaca oo waxa jooga dhaqtar Soomaaliya dhaqaatiirta hore ka haray oo aad ugu takhasusay arrimahan oo dalay dibadda looga yimaado Dr. Axmed Madliira taas ayaa faa'iido badan horta keentay qaybaha kale oo caafimaadka oo sida bukaan socod eegtada waxbaan ka qabanaa MCH jira qaybtii hooyada dhalaanka waxa xogaa nagu liita wali maadaama deegaanka ay ku yareen dadka dhaqaatiirta wax qasha laakiin intii kaleeto oo looga baahnaa isbitaal dabcan ma awoodna inaan nafaqeyno dadka oo beeshinka aan siixino laakiin adeegyada intii kale wadada wax un baan ka abuurnay insha Allah warbixintaada dhinaca isbitaalka طبعا مشروعاس ودور كان ليرهد ساهد عن هذه او تكتي دوسمرب يا قعني دكسيه يا بخيه مشروعاس حقيقه قاليه لو بخيني dadkaasi ka holgaliyay oo daawadiisa biya bixiya walaal mashruuca waxa iska kaashaday bulshada gobolka oo qayb dhiibta qurba joogta oo macnaha ayaga laftooda wax ka dhiiba oo lacag ku tabaruca iyo dawladda Finland oo 80% ilaa 70% mashruuca macnaha ishaag dhiibta qarashkiisa mashruuc 3 sano ahay sanadkii saddexaad ayuu hadda galay muxuu ahay ilaa waxa ka shaqeeya 38 shaqaalaha oo isugu jira dhaqaatiir nurses umulisooyin shaybaaro iyo muxuu ahay dad raajistiyaala طبعا ومشروع عدوين و إن مدعى السعودية من فليا عدو سنة كي قد بلودين مشروع عاسي ولا برنامج كعافمات كوان قبل كوضنا أو كساهيتان عن كوضنا ستيجي كلا دوان وصومري مركي هوري توحن بلونين استالك إن حقنا وميل وحو هاد ميراي حولو كوهيدان وبابوسن والدولة دي مركي بربورتكدي وحبا لغا مقوم ولا جتكي ويلي وحو هاي سبتالة دي قدن بيولا لسي سو قبياه ayaa laga tagay marka ilaahay xamdigiis dib weyn looma geysan laakiin dayactiran ku bilownay wuxuu leeyahay guriye martida oo lagu tala galay shaqaalaha guriye baan dayactirnay qayban u kicinay macnaha marka dhowr mashaariic oo yar oo kala duwan qaar sanad soconayay qaar laba soconayay ayuu ahay laakiin kan hadda ugu dambeeyay 3 sano ahay 2011 aan bilownay 2013 aan rajeynay dhamaado 3 sano ahay dawladda Finland ayaana 80% naga kabaysa waxa weey marka kan muhiimadiisu waxa waa in la isku xiro caafimaadkii barihii aan abuurnay iyo xarunta isbitaalka oo dadka baraha jooga ay u helaan fursad ay markii isbitaalka yimaadaan ay adeegyadii ugu muhiimsanaay oo ay baraha ka heli karin yaryarka ay ka helaan ayaa hadafku mashruucan u yahay dabcan waxaad sidoo kale aad la kulanteen baan filayaa madaxda gobolkaasi oo kuwii dawladda iyo kuwii ehelsanaba iyagu dabcan maxaad ka wada hadashay baasleeda runtii horta gobolka isbedel ayaa ka socda walaal oo isbedelkan oo runtii caafimaadka qabo Soomaaliya oo dhan ka socda wax way dadka walow dawladdu aysan wali gaarin waxaa jira maamul ay ku meel gaar ahaan dawladdii muxuu ahay Sheekh Shariif iyo Cabdiwali ay magacaabeen maamulka dabcan sii shaqeynaya ilaa muxuu ahay dawladdu ay maamul kala magacaawdo wali dawladdii ma gaarin laakiin waxa marka amnigana wali ciidamadii ahlu sunna ayaa jiro wali oo ahlu sunnadii wali heegalkeeda ku shaqeeya laakiin maamul official ahaan maamulka laga xiriira siyaasadda wax waa maamulkii dawladdu magacawday oo ku meel gaar ka ah runtii waxa ka jira muxuu ahay amni aad u wanaagsan waxa weeye dadkuna waxay aad u sugayaan in dawladda xoogeedii iyo enerjigeedii soo gaaro annagu marka waxaan la kulanay gudoomiyaha gobolka waa maqnaa xamar buu jiray laakiin gudoomiye ku-xigeenada ayaa joogay laba gudoomiye ku-xigeenada joogay maamulka ahlu sunna asaga waxa waaye badankoodu waaba joogeenba shirar ayaa meesha ka socday fursad aan u helnay xilligan tagnay ku aadnay oo ahlu sunna ka tashanaysa sidii dawladda loo soo dhaweeyay iyo maamulkii ku meel gaarka ahay marka runtii fursad qaaliya noo ahayd oo aan u helnay inaan bulshadii iyo maamulkii iyo madaxdii iyo culimadoodiiba aan la kulanno waxyaalaha runtii aan ka wada hadlaynana waxa weeye dabcan annagu urur siyaasiya ma nihin laakiin bulshada inaan ka wixii horumarkeeda
iyo wanaageeda aan kala talino u sheegno inuu horumarku iyo wanaagu ku jiro ayagu inay horta marka hore tilaabo qaadaan ee aysan dowladda ka sugin ay wax walba usuubiso waxyaalahan kala hadlayan taasay runtii ugu weynaay wayna nala qaateen. dabcan markii aad Soomaaliya tagtay waxaad ku horumartay magaalada Muqdisho marka maxaa isbedel ah oo u dhaxeeya xilliyadii aad hore u tagi jirtay Muqdisho iyo haatan intii ay isbedeshay xukuumadii Sheekh Shariif iyo xukuumadda haatan uu ka taliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed? walaal horta aniga xilligii Sheekh Shariif iyo dowladdiisa fursad uma aan helin inaan tago muxuu ahaay koonfurta Soomaaliya galgaduud iyo mudug ma ana dhaafin 99 baan iigu dambeysay muxuu ahaay xilligii qabqablayaalka ay xamar iigu dambeysay runtii waxyaalo badan oo farxad geliyaan arkay waxyaalo badan oo murug igu dhalayna waa arkay wax way magaalada burburkan ma aysan lahayn waagi horeeto qaybo kamid oo dagaalkii sokeeye oo macnaa wasiir magaalada qadiimka ahayd horeeto ayaa waagaas burbursanaay hadda wax way laakiin magaalooyin meel dhul badan oo markii dhismay iyo wixii ka dambeeyay ayaa hadda aad u burbursan sidaas oo ay tahay waxaa runtii aad ii soo jiitay horumarka ka socda habeen iyo maalin burus dhawaaqaya oo meeshii dadku waxay dhihi xabadaa yeeri jirtay laakiin hadda burus unbaa yeeraya iyo makiinad umaysaar wax jeexaysa waxyaala horta isoo jiita runtii taasay ahayd waxyaala kaleeto isoo jiita waxaa kamid ahay dabcan markaad meelahan ka tagtood waxaad sugaysaa in qaabkii waxyaala meelahan ka barnaad sugaysaa laakiin markaan arkay aeroboorkii oo macnaha qaybo badan oo kamid a aada isaga liitaan wadooyinkiiyo burbursan haddana dadku ay kulligood ay shaqaynayaan oo nin walba uu hawl hayo runtii aada ay isoo jiidatay wax intaan Muqdisho marayay iyo cabsi geliya iyo wax midna maana waxyaala meelahan aan ka maqli jirnay markii horeeto runtii waxa kaloo aada iisoo farxad geliyay hamiga dadka ku jira oo nin walba uu ku fakerayo inuu isagu meesha uu degan yahay hagaajiyo inuusan ka sugin cid kale inay wax u qabato waxyaalaha kaleeto runtii aad oo xataa gobolada dhexe xitaa ka jira waxaa kamid a dadkii oo nin walba uu kuleeyahay war aniga nolol kalaha ii abuurini cunuga $10 oo macnaha oo fiiga oo iskuolka brivatka iga bixi bil anaana risqi ilaahay baa qoray isbedelkaas ayaan horta runtii aad ii cajibiyey dabcan dowladan cusub oo macnaha oo ra-iisul wasaaraha ka yahay Saacid iyo madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh hami weynaa lagu qabaa oo macnaha waxa waaye dadku waxay sugayaan waxay leeyihiin waa runtii dowladdii militariga si nooga burburtay waxa waaye dowlad saan lamid hami noocaana nama soo gelin marka dadka laftoodu waxay isbarbar dhigayaan waxyaalihii ka horeeyay dowladii ku meel gaarka iyo jamhadihii iyo qabqablayaalkii iyo maxkamadihii waxyaalo badan ay isbarbar dhigayaan marka runtii waxaad moodaa dadku inay danaynayaan fursadan inaysan mar damba dhumin. dabcan waxaan filayaa in safarkaasi aad ku tagtay Soomaaliya uu ahaa safar yani ka duwan safaradii aad hore ugu tagi jirtay Soomaaliya sida aad hore u sheegtay maadaama aad ka mid tahay shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo ganacsiga dabcan waa hay'ad weyn maxaad u qabataa walaal waxaad ka hadlaysaa inta Soomaan wadanka Finland walaal wadanka Finland runtii aniga hawsha aan qabto ugu weyn waxa waa mashruuc ayaan madax ka ahay mashruucaas oo hadafkiisu yahay dadka wax bartay oo tacliinta sare leh sidii loogu heli lahay meelo iyo xirfado ay ku tababartaan oo shaqo ka helaan waa qayb kamid ah qaybta labaadna waxa weeye mashruuca in dhalinyarada yaryarka oo ajnabiga soo koraysa lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan say ugu hay-adaha publica u shaqeeya sida hay-adaha difaaca madaniga booliska iyo wixii lamid ah oo lagu dhiirigeliyo inay kuwa soo socda u noqdaan tusaale haddii ay marka kolleejooyinkaas ilmuhu noo galaan noo tababartaan waa waxyaalo badan oo wadankii aan baahi u qabnana way naga dabooli karaan oo tusaale ahaan waxa weeye wadamadan tacliinta aan ku haysano hadday dhalinyaradanu ka faa'iidaystaan baahideeda xaggay taallaa marka runtii arrintan aad hadda dhalinyarada iyo dadka uga hadla weeye war wax waaye aan noqono wax matarayso laakiin annagoo wax baranay oo dadka aan u tegayno wax ku saa'idi karna aan noqono marka runtii arrimaha ugu weyn horta anigu aan mashruuca u hayo waa kaas dabcan waxa kaleetoon aan ka tala bixiya waxa waaye arrimaha wadanka la qabsashadiisa ayaan macnaha ka tala bixiyaa waxyaalaha oo macnaha aan u aragno in wadanka lagu qabsan karo waxa dadkii in la siiyo fursad shaqo oo wax waaye dadka fursooyin shaqo loo abuurin oo aysan dareemin dadkii inay kamid yihiin qayb kamid ah bulshadii waxa weeye dadkii lama qabsanayaan wadanka 20 sano kadib ayaan waxaan taagnaanaynaa meeshii aan joogno 20 sano ka hor marka runtii waxyaalahan runtii aan kula talinayna way kamid tahay
dowladda Finland hadda waxa waaye hadda xukunka haysa 2 sano la soo dhaaf barnaamijkeedii hadda qiimeynaysa maanta waxyaalaha ugu muhiimsan hadda ay aad u bombooneen wax weeye war suurtagal ma ahan saan in dadka ajnabiga ay baagamuudo u sii ahaadaan waa in inta 2 sano hartay kala bar laga dhigaa baagamuudadooda macnaha la yareeyaa shaqaale shaqa loo abuuraa marka runtii rajooyin badan aa jira insha Allah waxaan kaloo rajeynayaa in baagamuudadu yaraato gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaana fursad ku siin doonaa dadka iyagu ku nool Finland maadaama aad ka shaqeyso wasaarad muhiim ah maxaad faraysaa dhalinyarada odayaasha gabdhaha iyo guud ahaan bulshada qiimaheeda kala duwan ee haatan ku dhageysanaya si maqal iyo muuqaalba walaal aad ayaad u mahadsan tahay horta runtii warkii nuxurkiisa horaan u sheegay laakiin waxa weeye waxaan bulshada Finland joogta kula dardaarmayaa waxa waaye aan ka faa'iideysan horta ku fursada aan haysano fursadahan waxbarasho oo aan haysano dad badan aan haysan aan ka faa'iideysana taas laba waxa weeye wadankan haddaan ka muuqano oo dad ku noqono ayaan xaggana wax u tari karnaa waxa weeye wax nagu tari mayso keliya aan noqono iyo xagga aan aadno anagoon wadin waxaan ku noqon lahayn iyo waxaan la noqon lahayn marka waxaan qabaa taasna inaanan dayacin khaasatan dhalinyarada oo runtii dadka waayeelka ka dhag fursado fiican luqadii yaqaanin bulshadii ay ku dhex jiraan kuwaas waxaan kula dardaarmi lahay war waxa waaye waxaan bulshadan ku bedeli karnaa finishka ah oo cunsuriyadda iyo dhibka badan aan ka tabanayno inaan tacliin iyo aqoon kula tartano waxa weeye xagga Soomaaliyana waxaan sharaf iyo qurux ku yeelan karnaa inaan inta tacliin iyo horumar iyo wanaag inta ka qaadno la tagno taas ayaan kula dardaarmayaa waxaan kaloon bulshada Soomaaliyeed oo aan runtii aan dad badan oo wanaagsan ku jiraan kula dardaarmaya waxa waaye qof walba waxaad qaban karto qabo ha eegin hana sugin qof hebel wuxuu u qabo waa hadeen laakiin adigu waxa aad qaban karto qabo midda kale waxaad adigu subis qaata qaacida ah aniga booskeygiyaa bannaan anigu waxaan qaba lahay ayaa bannaan laakiin hadhiin hebel wuxuu u qabo waayey hebel saasuu yeelay waxba ma nooma tarayso haddaan is dhaliilno iyo haddaan is eedayno nin walba wixii wanaagaad qaban kartid qabo dadka iyo taariikhda iyo waxawaa ayaa ku xusi doona ilaahay waa xisaabinaya wixii aad qabato intaas ayaan kula dardaarmi lahay aad baad u mahadsan tahay Saciid Kaarshe Aadan ayuu ahaa oo ka shaqeeya arrimaha wasaaradda arrimaha shaqada iyo ganacsiga aad baad u mahadsan tahay aad ayaad maxamed u mahadsan tahay fursaddan qaaliga aad siiseen daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabanayaa barnaamijkii xogside oo aan ku wareysanayay Saciid Kaarshe Aadan inta aanu mar labaad ku kulmi doono barnaamijkan mid xiga waxaan idinkaga tegayaa sida iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد